ma ka warwarsan tahay timahaada ama timaha gabdhahaada ciida wixii aad marin lahayd oo ma isleedahay allama marin kartid jilciso maxaa timaha ku jilcisaa yacni isdhexgalka uga baabi'isa yacni timaha isku dhagaayo timaha daadanayo siibashada tima adayga bixi waaytaha intaasba xal ayaa loo helay oo waxaa lidiin hayaa shaambo iyo saliid iyo nafaqo timaha uga qayb qaadanayso quruxdooda iyo muxuu ahayntood bixitaankooda hadda maxaa idin leeyahay insha allah haddii aad danaynaysid biidnillahi alkariim inay timahaada kuu baxaan kuu dheeraadaan dhabarka kuu dhaafaan dhulka kuu gaaraan deriskana kula qaadaan hadda alaabtan ayaa u baahan tahay gabaray macsalaamee bidaarta wiilow adna sidoo kaleeto macsalaamee bidaarta timaha adag timahaada waxay noqonayaan tima haddii aad rabtid jilicsan kala baxbaxsan insha allah waxaad arki doontaa faa'iidadeeda iyo nafaqadeeda weliba si degdeg ah maalinka ugu horeeyo hadda aa ku dhaqatid bil laguma dhahaayo isbuuc laguma dhahaayo hadda sanadana laguma dhahaayo ogow marka maxaa idin leeyahay insha allah hanaansan hamoogaaninaha biidnillahi alkariim nafaqadeeda iyo shaambadeeda iyo saliideedaba waa arki doontaan meel walba adduunka joogtaana waa laydinku soo gaarsiinayaa biidnillahi alkariim marka horeeta waxaan kusoo bilownay saliid haddana waxaan kusoo darnay shaambo iyo nafaqo midaasoo ka qayb qaadanayso timaha inay daataan siibtaan go-aan hadda maxay kaa joojinaysaa timihii siiban jira timaha hadday siibtaan maxaa imaanayo inay yaraadaan bidaarku gasho bixi waayaan intaasba ka hortag ayay u tahay waxaa kaleetoon haynaa qaybtii caruurta ayadana sidoo kaleeto oo nafaqa leh oo saliid leh oo muxuu ahayntood shaambale ayadana sidoo kaleeto marka maxaa idin leeyahay insha allah timahaada haddii aartid inay kuu noqdaan timo xariir ah ama rag ahaaw ama dumar ahaaw ama ciyaal ahaaw insha allah waa idinla wadaageynaa bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhammaan waa idin salaamay inta ku xiran janalka karin i qurxin waa karin iyo qurxin oo soo rogaal celisay hadda waa alaabihii looga maarmay turkiga in loo aado madaxna lasoo beerto dad badanna ka baajisay hadda maxaa idin leeyahay rag iyo dumarow soo dalbada biidnillahi alkariim adinkaa arki doontaan hadda maalinka ugu horeeya ama isbuuca ugu horeeya ayaa isbedelka arkaysaa dadka maalinka ugu horeeya ama isbuuc ugu horeeya isbedelka arkaya waxaa waaye dadka timaha ka daataan oo timahooda markay shalaynayaan siibtaan ama gacanta markaysaa u dhexgeliyaan oo kale timaha ay soo siibanayaan dadka timaha adag leh dadka timahooda isdhexgalaan dadka timahooda markay shanlada marinayaan oo kale inta iscelcelinaya hadda hadduu shanle isla markii hadduu shanlada geliya wuu iscelinaya intaasoo dhan waxaad leedahay baybay iyo macsalaamo hadda haddii aad leedahay bidaar ama aad leedahay timahaada inay muxuu ahayntood kuu bixi waayeen adigana waxaa ku arkaysaa resultiga 4 isbuuc 3 isbuuc gudahooda biidnillahi alkariim sidii aan ku aragnay dad badan oo isticmaalay annaga saliidaheena waxay ka kooban yihiin 4 saliid iyo 3 acshaab waa 7 shay acshaabaha waxaa waaye waa waxyaalaha oo geedahoo kaleeto ka samaysan wayna kala duwan yihiin midda ilmaha iyo midda kaleeto mid waa mid ilmaha la shaqayso midna waa mid dadka waaweyn la shaqayso saliidaheena maasha allah waa saliidaha ugu horeeyo ee maasha allah timaha aad iyo aad u bixin karo biidnillahi alkariim wax walba ilaahay xaggiisa ayay ka socdaan hadduu ilaahay ugu talagalay maasha allah qof walba timihiisa way u bixi doonaan biidnillahi alkariim sida aan dad badan aan ku aragnay rag ah dumar ah way u shaqaysay maasha allah haddana maxaan kusoo darnay hadda shaambo iyo nafaqo shaambadana waxaa waaye 5 vitamins ayaa ku jiro waxaa kaleeto ku jiro inay timaha ka joojiso siibashada inay timaha madoobayso waxaana ku darsan conditional oo waaye shaambo keligeed ma aha waa conditional ayaa ku dhex jiro timaha ayaa jilcinaysaa way madoobeynaysaa siibashada ayay ka istaajinaysaa saliidii ayadana sidaasoo kale waad ku masaajeysanaysaa nafaqada isbuuci hal mar ayaa ayadana marsanaysaa waxay ka qayb qaadanaysaa timaha inay qolofta ka qaado yacni agoolka hooso ama taxobka dhintoo kaleeto ee ku jiro markaas markuu taxobka qaadmo maxaa sahal noqonayo inay timo caafimaad qabo oo nadiifa ee soo baxaan maxaa kaleeto nafaqada ka qayb qaadanaysaa isdhexgelitaanka timaha siibashada inay timaha bixi waayaan adi maasha allah
aad iyo aad ayay uga qayb qaadanaysaa inay timaha iyo caafimaadkooda iyo faydhowrkooda. marka maxaa idin leeyahay biidnillahi alkarim haddii aad rabtid maalinka ciida adiga iyo gabadhaadaba hadda haddii aad wiil tahana sidoo kaleeto inaad timo qurux badanoo sas u birbirqaayo hilhilaacayo shaynin suubinaya haddii aad rabtid inaad ku ciidid insha allah soo dalbo adiga arki doono biidnillaahi alkariim. rag ama dumar midkaa doonta ahaa ama ciyaal haddii aad ku fikirayseen inaa madaxiina marisiin jilciso siya ugu jilcisiin hadda ka maaran ugana maaran waxaas kaas oo beri kuu keeni karo bidaar kuu keeni karo inay timahaada kaa baaba-an kuu keeni karo madaxaada inuu boog yeeshto sababto waa kiimiko kulul madaxa ayayna inta badan daqartaa ee boog u samaysa. laakiin alaabtan ayada timahaada ayay qaboojinaysaa. timaha toxobka hadduu kaa leeyahay kaa qaadaysaa ama agoolka sidaa u taqaanid haddii ay timaha kuu bixi waayeen kuu bixinaysaa. haddii aflaaqa lahayn aflaaqaday kaa baabi'inaysaa. hadday ahaayeen timahaada timo isdhexgalan way furfuraysaa hal yacni in la fooneeyo kaleeto. yacni haddii aad alaabtan maristid xitaa fooneeyo ma u baahnid shanlada saas aa u maristid waxaad leedahay bismillah fooneeyaha nuuci ugu dambeeyay maa soo marsta. hadda waana wax serious ah hadda wax been ma aha waana arki doontaa rag iyo dumara la wada isticmaali karaa. waa ujeediin benefitkeeda faa'iidadeeda waxeeda dhan way ku qoran yihiin. dadkii isticmaalay unbaa yaqaano. aniga hadda already aan videoga soo duuban soo gelin ayay customkeyga maadaama ay saliid iga sii gadan jireen marka iga soo dalbadan aan usii sheegay maasha allah already nus way baxdaba. marka hadda hadhowda ima eedi kartaan. aniga inta badan acshaabahayga waxaa laga keenaa Morocco iyo dhankaas yacni geedaha lagu daro. mararka qaara waxaa jirta iga soo daahaan ama aan waayo oo xoogaa aan sugo oo yacni saliidii aanan diyaarinin. dadka waxay ku dhahayaan saliidi maa diyaarisid saliid waa awoodaa saliid inaa iska soo qaad aashubita laakiin maya muhiimadda waxaa waaye inaad ku dirtid yacni acshaabihii. saliidahana waxay ka kooban yihiin 4 saliid iyo 3 acshaab ama 3 geedo kuwaasoo maasha allah ka qayb qaadanaya timaha inay caafimaad siiyaan nafaqo siiyaan yacni madax xanuunka oo kaleeto xitaa uga qayb qaadanayo timahoo kaleento bixitaankooda ka qayb qaadanayo agoolka inay ka baabi'iyaan ka qayb qaadanayo timaha inay siibashada iska daayaan ka qayb qaadanayo maasha allah. hadda maxaa idin leeyahay insha allah intii aadan jilciso marsanin ka hor hadda tijaabi hanaansan sedkeeda oo ah shaambada nafaqada iyo saliidda. hadda intii aan lagaa dhamaysanin soo dalbo maalinka ciida ha ku fikirin inaa marsatid jilciso ilmahaada aa u marisid adiga aa marsid haddaa wiiltaana aad isku daydid inaa madaxaada jileec aa noqotid ka dhigatid oo kaleeto oo kuu furfurma. hadda alaabtaana kugu filan insha allah. haddii maasha allah waxaan idin leeyahay oo idinka tagayaa salaanta islaamka salaamu calaykum.